انقلاب كميليتري هي انقلاب شرعي وحن كشرعي xildhibaan Cabdiqaadir indha oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay xeerka ururada furista siyaasadda ee maalmihii la soo dhaafay khilaafka weyn uu kaga dhaxeeyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu xildhibaanku sheegay in sharciga la ilaaliyo inagu golihii nabadgelyadana waynu nahay golo sharci dejineedna waynu garan karaynaa xeerkii aynu ansixinay oo buuq badan ka taagan yahay inuu maanta jiro arrintan waxaan jecelahay inaan ku dhiirano inkasta oo imika maxkamada iyo meelaha u galay oo aanan ka hor dhacay laakiin haddana waxa weeye golayaasha markay isqabtaan in ay sifo sharciga waafaqsan ama 77 ama 78 ama 38 qodobada dastuurka ee waajibaadkeena shaqo kala sheegaya inaynaan dhaafin taana intaasaan kaga baxay waxaan soo noqonayaa arrimaha gudaha oo mawduuc yahay waan ku amaanayaa madaxweyne ku-xigeenka oo GBLG nabadgelyo darro horta gobolada dalka ka jirta maanta ma jiro waxaan ahayn murankaa sharci laakiin GBLG waa arkaysa berbera la furay nabadgelyadu markay waxay u baahan tahay horumar baa la wadaa nabadgelyada horumarinteedii baa lagu jiraa isaga iyo waftigii wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Togdheer iyo marba gobol bay ku qabtaan mar Sanaag bay ku qabtaan mar Sool bay ku qabtaan laakiin sanadkan berbera iyo Oodweyne ku qabteen labadaba baahiyahoodii waxay isugu yimaanayeen maayaradii dalka shaqo wanaagsan bay ragaasi hayaan iyagana waan ku amaanayaa waxaan u soo noqonayaa arrinta ciyaaraha وباسكتبولكي oo iyana kamid ah horumarinta nabadgelyada kuwii basketkana habeen dhaweyd baa la soo xiray kuwii kalena shalay goboladii oo dhan iyo wasaaradihii wixii kubad ciyaari jiray in madaxweynihii furayay waa arkayseen wuxuuna kaga baxaya dalka haddaynu sharcigiisa ku adkaan weyno inqilaab sharci buu noqonaya cid kasta oo ka hor timaada dastuurka inaynu ku dhiirano oo aynu tilmaano oo inaan ka aamusunbay aniga ilaahay tahay laakiin had iyo goor wasiiradu marka ay meesha tagaan wasaaradihiiba baahil u qabaya inay iyaga joogaan inkasta oo ku haray wasiirkii arrimaha guduhu oo dhex joogo haddana meel khayr ka soo socday oo kayd halkaas waana noqon doonaa inta ay dhammaanayso ka hor dhici maayo waxaan u soo noqonayaa arrintan imika saaxiibkayga horreeyay uu ka hadlayay oo ah arrin loo baahan yahay in aynu maanta aada uga doodo xamse maxamed muuse cawke sahan TV hargeysa